السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا احترامك يا كرامة بدنات بانيني سلامينا سلامك الكعالكالي الله بايان هوضيني صومرينينا كسو دوادا كنالكينا عافيماتك يدريالك عافيماتك النولوشا مقالك وحاينو كسو قادنينا هويني كحيلا كنالكينا يا وحاينو سو قرتي قرال waxaanay tilmaamaysaa way sheegtay waxay tiri waxaan lahaa guri iyo reer iyo markaa mustaqbal fiican ayaan lahaabay tiri saygayga ama ninkayga muddadaanu isqabnay 3 sano ayaan ku qiyaasi karaabay tiri ama ay gaaraysay muddadaas waxa dhacday bay tiri inaan muddada intaa leeg aanu ilaahay nagu arsaaqin ama aanu nasiinin ubad waxaanu u tagnay bay tiri dhakhtar oo dhakhtar baanu markaa doonay isaga iyo aniguba inaanu iska soo eegno kaayaga markaa dhibaatadu ay jirto iyo xagga ay wax ka jiraan intaba waxay tiri dhakhtarkii markii aanu u tagnay ayaa dhakhtarkii wuxuu aniga igu yiri bay tiri ciladu waa dhinacaaga ninku ama markaa sayga aanu isqabnay waxay tiri isaga dhinaciisa dhibaatadu kamay jirin aniga markaa wuxuu igula taliyay bay tiri inaan isnafaqeeyo oo waxantaydu ay daciif yihiin oo loo baahan yahay inaan nafaqeeyo taas ayaa wuxuu yiri waxa suuragal ah inay arintaas ay dhici weydo salaajigeed aniga ayuu qaabka ay soo qoray dawooyin faytamiinana waa ay soo qoray bay tiri kadib arintii ayaan ku kala nimid dhakhtarkii waxay tiri anigoo xilligii baanashada ku jira oo isnafaqeynaya ayaa waxa soo ururay ama soo afmeeray inaanu kala tagno oo runtii noloshii aanu wada wadaagaynay ninkayga ayaa soo dhamaatay oo waxaanu ku go'aansanay inaanu sidaa nolosha ku kala baxno imika waxay tiri waxaan wali warwar ka qaba haddaan reer kale iyo mustaqbal dambe sameeyo in arrintii oo kale igu soo noqoto maxaa tala ay siinaysaan se laakiin waxaan isku nafaqayn karaa bay tiri walaasheen aad bay u mahadsan tahay haweenaydaasi dabcan arrintani waa arrin inta badan iska dhacda oo lamaanaha iyo qoysaska guud ahaan caalamka waa mid ka dhacda oo iska caadiya xilliyada qaar ninka ayay noqon kartaa mararka qaar haweeneyda ayay noqon kartaa mararka qaar labadooduba iyagoo aan waxba qabin oo aan dhibaato jirin ayaa haddana aanu ilaahay siin karin arrimahaasi dabcan waa arrimo dhaca haddaba haddaynu haweeneyda taladeeda ku soo dhowaano iyo waxa aynu ka odhanayno marka koowaad sida aynu tilmaamnay state of living-ka ama xaaladda ay haweeneydu ku jirto ee ay ku nooshahay qayb bay ka qaadataa dhinaca tafiirteeda waxa kale oo qayb ka qaata xanuunada hadday jiraan xanuunaha haweeneyda jidhkeeda ku jira waxa kale oo qayb ka qaata level of nutrition waa levelka ama nafaqada qaabka grade-ka nafaqa ee ay haweeneydu hesho ayay qayb ka qaadata inta badan factorieska iyo factorada kale ayay dhakhaatiirtu soo daliishadaan inay arrintan keentay sababto haddaba walaashayna ko taladeeda ku soo dhawaanayna waxaynu kula talinaynaa inay wadooyin ka raacdo marka koowaad inaanay isneed jabin oo aanay niyada marka aanay iska jabin ayaa muhiima dadka qaar ilaahay ubad ma kala siiyo reer kale iyo guri kale hadday samaysato rajadeedu inay 100% ahaato ayaynu walaashan kula talinaynaa oo aynu soo bandhigaynaa waxa kale oo dhacda in qofku xilliyada qaar markay tahay xaaladdu dhinaca nutritionka ama nafaqada waa xaalad temporary xaalad permanently ay haweeneydu ku waaraysan maaha haddaynu dhinac kale u sii faahfaahino yacni muddadaas ay haweeneydu ay soo kicinayso ama jidhkeeda ay nafaqeynayso ayaa laga yaabaa inay suurageli weydo inay u wadiyo awlaad hesho laakiin hadhowto markay nafaqo ku filan ay hesho way helaysaa fursadii haddii ilaahay siinayo oo ilaahay u ogolaanayo gamcaha ilaahay ayay ku jira oo soo fasaxayo way helaysaa marka niyada inay iska jabiso waa qalad iska ilaali arrintaas walwalka iska ilaali arrimahaasi waa inaad aad uga fogaataa waa inaad markaa aad 100% rajaysataa xataa haddii ilaahay ubad keeni waayo qofku wax iska nolosha ayay ka mid tahay inuu dadka qaar ilaahay uba siiyo qaarna aanu siinin qaarna markaa uu badiyo markaa wax dhibaato ah oo ay leedahay sida ilaahay wax u qoray waa muhiim laakiin haddaynu naka u nimaadno haweeneydana qaabka isku nafaqeynayso iyo sida isku daryeelayso iyo halka ay marayso inay warwarka iyo walbahaarka iska yarayso waa muhiim oo isku buuqa ay ka fogaato
qodobka labaad nafaqada ayaa aad u muhiima. goobaha ugu waaweyn ee la iska nafaqeeyo waxa kowka ama dhakhaatiirtu ay soo bandhigaan waa fruitka iyo vegetableka, qudaarta cagaaran iyo qudaarta midhaha. qudaarta midhaha waxaynu sheegnaa sida cinabka, muuska, abalka ama tufaaxa iyo kuwa inay aad u cabto oo aad u isticmaasho. qudaarta cagaaran hadday inta badan kaaroodka noqoto, hadday kaabashka noqoto, hadday asalaataha noqoto, caleenta cagaaranna inay aad u qaadato ayaa muhiima. waxaa laga helaa minerals iyo vitamins aad ugu baahan yahay jirkeenu guud ahaan, gaar ahaan haweeneydu xilliga arrintaa loo baahan yahay. waxay isku nafaqayn kartaa caanaha iyo hilibka, gaar ahaan cuntooyinka badda laga helo ayaa aad u muhiim ah oo kalluumada kala duwan inay qaadato ayaa aad iskugu nafaqaynaysaa oo jirkeeda tamar fiican iyo awood wacan u samaynaya ayay qaadan doontaa. waxay kaloo qaadanaysaa sidaynu horu tilmaamnay cuntooyinka inta badan dabeeciga ee galka iyo gaska leh, gaar ahaan digiraha iyo borotiinka iyo calciumta iyo mineralska kale iyo faytaminadu ay ku jiraan way qaadanaysaa. waxyaabaha iska yaraynaysa waxaa ka mid ah inay markaa ay qaadato cabitaano sonkortu ay aad ugu badantay. taasi waxyeeladeedu way badan kartaa. inay iska yarayso dufanka aadka u saayidka iyo qabowga iyo waxyaabaha inay ka fogaato. waxay kaloo iska yaraynaysaa cuntada inta badan aan nafaqada iyo tayada badan lahayn ee carbohydrate iskaga badan yahay sida burka, bariiska, daqiiqda, waxyaabaha inay ka fogaato oo aanay aad iskugu badin ee qudaarta cunitaankooda, qudaarta kala duwan, cuntooyinka galka iyo gaska leh ee digiraha noocyadooda kala duwan, cuntooyinka badda laga helo, kalluumyada noocyadooda kala duwan, cabista caanaha iyo inay aad u basato cabista biyaha. saddexdaas ayay ku dadaali doontaa, afartaas ayay ku dadaali doontaa haweeneydaas. waxaa kaloo iyana lagama maarmaan u ah inay ka fogaato buuqa iyo inay hurdo ku filan ay seexato xilliga habeenkii, oo waqti hurdo ay ka bogan karto ay seexato. arrintaas intaas ayaynu ku soo ururaynaa taladii iyo tusaalihii ku saabsanaa walaasheen aynu u soo bandhigaynay. la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshadeena kale. waxaan idin rajaynaynaa nolol aad u qurux badan, caafimaad taama iyo mustaqbal ifayo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.